sida la wada og yahayba waxaa ku dhuftay guud ahaan deegaanka Soomaalida abaaro baahsan isla markaana waxyeello u geystay dad iyo dunyaba waxaana lagu jiraa dadaalo loogu gurmanayo bulshadaasi la ildaran abaarta haddaba qaar ka mid ah haweenka magaalada Jigjiga ayaanu wax ka weydiinay doorka ay haweenku ku leeyihiin ka qaybgalka gurmadka abaaraha iyo sidoo kale sidii loo samata bixin lahaa bulshada ay haleeshay abaartu iyagoona carabka ku dhuftay inay gacanta iska qabsadaan xaaladaha ka dhalan kara abaarta haweenku muhiim oo muuqata ay ku leeyihiin sidaan wada ogsoonahay abaartu badanka waxay saameysay maati hooyooyin iyo dhalaan ah abaartani ayaa ah tii ugu baanayd ee deegaanka soo marta nus qarni ka hor haweenka kaalin muhiim ay ku leeyihiin oo inay gurmadyo sameeyaan iyaga laftooda waa looga baahan yahay intay haweenka is urursan sida ugu fududeeyay haweenku uga hortagi karayaan gurmadna ay u fidin karayaan inay haweenku iyaga is urursadaan lacag ururiyaan siday u caawiyaan maatida ama hooyooyinka ku waxyeeloobay abaartani ayaa noqonaysa tii ugu baanayd ee deegaanka soo martan doorka ay ku leeyihiin haweenka caafimaadka abaaraha ay doorkooda kaga aadan waxa weeyaan xilliyada abaaraha hodan ay badanaa waxaa dilaaca xanuuno maadaama ay jiraan resource yaraan oo ay burburayaan cuntooyinkii la isticmaalayay biyihii la isticmaalayay oo nadiifta ahaa oo laga yaabo inay biyowgii wasakhoobaan in la waayaba biyo la'aan dhacdo dadka markaas ay biyo la'aan iyo cunto la'aan baahsan ay ku dhacdo xoolaha ay isticmaalayeen ay cadiya caana ka isticmaalayeen inay ka baxaan laga yaabo abaartu maadaama ay keensan karto xanuuno xilliyadan oo kale waxaa la sameeyaa daraasaad caafimaad oo maxaa la yiraahdaa la wado taas oo lagu eegayo inay maxaa la yiraahdaa dadkan caafimaadkoodu uu caadi yahay iyo in maxaa la yiraahdaa xanuun dilaac jiro taas oo mar walba lagaga hortago xanuunada loogana gaashaamto ka haween ahaana doorka aan ku leenahay kulay waa door aad iyo aad u muhiim ah anigoo ku hadlaya afka ganacsatada gaar ahaan haweenka door muhiim ah ayaan ku leenahay abaaraha doorka aan khaasatan ku leenahay waxa weeyaan ama ay abaaruhu si ba'an u saameysay maatida iyo haweenka u badan hooyooyin markaas anagu door ahaan waxaan ku leenahay ganacsatada haddaan nahay in aan caawino wixii aan awoodi karno Allah subhanahu wa ta'ala ayaa dadka dhirgin kara laakiin anagu inta aan awoodno in aan ganacsiga iyaga ka jarno oo siino walaalahayo wixii aan u heli karno insha Allah waana ku dadaalaynaa ka xafiis caafimaad ahaan waxaa nooga qorshaysan dadaalada la wada ay kulay ma yara diyaar garowyo aad u fara badan ayaa jiro maadaama xilliyadana roobab ay bilaabmeen roobashaas u horeeyay iyaga laftarkooda xanuuno ayaa ka dhalan kara maadaama dhulkii wasakhaysan yahay environmentalkii markay biyihii da'aana dadkii maadaama biyo u ciil qabeen waxaa laga yaabaa inay meel kasta biyo markaa ay ka cabaan marka xafiiska caafimaadka doorka kaga aadan iyo shaqaalaha fidinta caafimaadka waa in dadka wacyigelin la siiyo si aanay biyo wasakhaysan u isticmaalin waana in la siiyo biyaha dawadii biyaha kaloorin hadday ahaan lahayd iyo hadday aquatada ahaan lahayd iyo hadday inay wax kastoo biyahan lagu daweyn karo in loo isticmaalo maxaa la yiraahdaa dawooyinkii alaabaha emergency-ga in mar walba diyaar uu noo yahay oo xanuun dilaac lacala hadduu dhaco ka caafimaad ahaan kulay diyaar garowyo aad u fara badan ayaan ku jirnaa waxay ku caawin karaan dumarka ama haweenka guri joogta ah ee hamigoogu yahay aan ma shaqeysto yacni ma abaaraha dadkaas waxba kuma caawin karo ma ahan kaliya in uu qofku shaqeysto ama ganacsi uu leeyahay ma ahan kuma xidna abaarahan adigoo gurigaaga jooga waad caawin kartaa iyadoo imikana bisha barakeysan ee Ramadaan inagu soo aadan dumarka guryahooda jooga waxaan dhahayaa ama talo aan siinayaa haddii aydan shaqaysan ama ganacsatayaasha aydan ku jirin gurigaaga adoo jooga waxaad sameynaysan barnaamij ama maxaa abaabul maadaama soo socoto bisha Ramadaan afur walaalka waayo qoyskaaga kugu xiga ama qoys abaarihii ka soo kacay oo soo barakacay ha ahaadaan ama qoyska kugu xiga oo iska danyar ha ahaadaan abaaruhu ku magaalo jooga iyo ku miyi joogaba dhinac walba way saameeyeen marka waxaan dhihi lahaa barnaamijka afur walaalkaaya waa inaad sii xoojisaan oo qoys walba qoyska walaalkii jaarkiisa wuxuu ku dhaamo ku afuriyo walaalkii waxaa tagnay deegaamadan macnaha tuulooyinka nagu hareeraysan
waxaana ka jirta abaar aad u ba'an taasi oo gaarsiinay boonyada biyo ah laakiin xaqiiqatan ma oran karayo wali doorkayga waan gudanay oo dhowr boonyadood oo meel la geeyay tuulo la geeyay waxba kama tarayaan laakiin wali waan dadaalinaa